qiimaha la kala siisto xoolaha nool saylada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ku yimid kadib markii maamulka Puntland uu mamnuucay gaadiidka ka yimaada koonfurta Soomaaliya iyadoo xoolaha laga qaado magaalada Beledweyne la geyn jiray magaalada Boosaaso kadibna loo dhoofin jiray dalalka Carabta waxaana arrintan ay saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa ganacsiga gobolada koonfurta iyo waqooyiga dalka xoolaha xayiraada aad iyo aad dadka ku saameysay magaalada macnaha xoolaha ewl meesha xoolaha buux jirta meesha lo iyo ari iyo adduun oo dhan meesha oo lujir wixii oo dhan hadda waa xirmeen wax kala socdo male xoolihii nin kasta doorku oo dirsan magarad marka qaabkaas oo hadda qaabkaas xagga laga sameeyay sax irtiga hadda 2 milyan iyo 600 laga bixiyay ewl muxuu ahaan jiray $1 ku dhawaad 800 hadda saas baa meesha bawra amri jirto wax jireen hadda waa xirmeen wixii oo dhan marka galaasay geela markii hore xawi qaalib uu ahaa waa ficnaa hadda taa waxa saameyn uu reebay ayadoo Puntland alsha Puntland ayaa saameyn ku reebay ratiga geela weyn waxa la gada jiray hadoo 16 milyan 14 milyan 500 milyan 500 hadda taana waa 2 milyan 500 12 milyan ugu badan marka saameyn yar baa meeshaas laga soo gudboonaatay taasoo زائد حوالها أول هي هذا اسمه أول سوق عمران أو سوقية هي الدنيا كده واسكو حرناي قبل هذا دحيم على كوبا فريق واسل شغين جرين هذا لكن وحي كلا هكذا جرى جد جوين كاسانا والسبب أو هالكعب بدلان إذا ما لبضن هذا وقت كان سوقا هذا وجدين سوق عمرنا إيه ما أنتنا وأنت تاجو أركيسان حوالها الدور كله وعلم دام بيع سكر دايسين جرين ساس درتد هذا لكن دراه نسكي لما يسنا قيمها وحي نسكي ماذا إن كستو هكذا أسكجرو وحي ما إنه قد ما ينهض التجس جدودن واتوبن كوي 2 مليون واي كان كيرو جدي ريسك وات 2 مليون إلى عقدر واي ووحي لك أنا ونظر كودي قد ما محمد عبد السني تلفزيون كعالمي بولشو بلدوين